السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني وبرتيدا يوتيوب أبو جميديا qodobada aan idin hayo waxaa kamid ah Generaal Sheego Axmed Cali oo xaaladiisa laga darinayo duqeyntii ugu cusleed oo geysatay khasaaro dhimasho dhaawac ah oo xalay mar kale deegaanka Alkowthar lagu garaacay. sidoo kale waxaan idin hayaa hogaanka maamulka Puntland iyo saraakiishooda oo ceeb iyo fadeexad ay dul hubanayso kadib dhacdo aad u foolxun oo ka dhacday gudaha magaalada Garowe. sidoo kale waxaan idin hayaa oo aad maqli doontaan arrimaha doorashooyinka dalka oo aad la isugu hayo iyo xaaladda oo cakiran iyo qodobo kale oo aan idin qalinayo. marka hore waxaan ka codsanayaa in aad barteena YouTube subscribe inoo saarto isla markaana aad ka mid noqoto dadka nagu xiran. mahadsanid. aan ku bilaabo deegaanka la yiraahdo Alkowthar oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe waxaa xalay mar kale duqeyn xagga cirka ah ka geystay dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada cirka iyo dowladaha taageera, waxaana lagu soo waramayaa in uu jiro khasaare kala duwan oo dhimasho dhaawac ah oo kooxda soo gaaray. kooxda ayaa xalay loo shiday baaba iyo dab culus, waxaana la sheegay in uu soo gaaray khasaarihii abid ugu darnaa oo kooxda dhinaca cirka ah looga geysto. Alkowthar waxaa toddobaadkan gudihiisa ka dhacay duqeymo tiro badan oo dowladdu ay sheegtay in lagu bartilmaameedsaday saraakiil iyo xubno sarsare oo ka tirsan kooxda Khawaarija. sida aan xogta ku helnay Generaal Sheego Axmed Cali oo kamid ah saraakiisha ciidanka militariga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana la sheegay in xuquuqdii iyo xaqii dowladda ku lahaa la dafiray, la dulmiyay, isla markaana lagu shaabadeeyay barnaamij uusan shaqo ku lahayn, ayaa hadda la tabinayaa in uu xaalad adag ku wajahayo xabsiga dhexe ee magaalada caasimadda Muqdisho. Cabdishakuur Shaasha oo kamid ah ehelada ku dhow generaalka ayaa xaqiijiyay in socodka uu gabay generaalka la geeyay cisbitaal, xaaladiisa ay adag tahay, isla markaana dowladda ay ku tacadisay, isaga oo hadalkiisa intaa ku daray in Mukhtaar laga dhigay wasiir sharaf leh oo dowladda ka tirsan. sidoo kalena xubnihii kale ee ka tirsanaa kooxda hadda dagaalka lagula jiro loo kiriyay guryo dabaqyo ah, amnigooda la sugo, halka Generaal Sheego Axmed Cali oo deegaano iyo degmooyin ka tirsan Shabeellaha Dhexe, Shabeellada Hoose, Hiiraan iyo Galgaduud ka dhigay meelo isku furan, dagaalna ku qaaday kooxda hadda dowladda ay la daaladhacayso sanado ka hor. ha yeeshee dowladda xilligan isaga oo weerar lagu qaaday gurigiisa la dhibaateeyay, haddana lagu daray xabsi iyo ganaax uusan ka bixi karin sida ehelku ay sheegeen. waxaa ku dhacay cagaarshow midka loo yaqaano B sida ay sheegeen ehelada qaar oo aan ka soo xiganay, waxaana loo qaaday mid kamid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. sanado ka hor ay ahayd markii weerar gardaro ah lagu qaaday sida dad badan ay sheegeen guriga generaalka, la duqeeyay, kadibna laga dilay ehel iyo wiilal uu dhalay, la dhaawacay kuwa kale, gurigiisii la balliqeystay, isagiina gacanta lagu soo dhigay, loola dhaqmay si ka baxsan bini'aadanimada, ugu dambeyntiina xabsi loo jaray, kuna markhaati fureen ciidankii weerarka qaaday, taas oo ka baxsan qaab qaadista dacwadaha sida ay sheegayaan dadka shuruucdaasi yaqaana. ugu dambeyntiina daawadayaal, deegaanada Puntland gaar ahaan hogaanka ugu sareeya maamulkaasi uu ka mid yahay Saciid Dani, taliyaha booliiska, kuwa militariga iyo shacabka deegaanadaasi ayaa xilligan ceeb dhexjabaaxaya kadib markii 22 bisha ay ka dhacday dhacdo aad u xun oo ah in askari weli gudaha magaalada jooga, aan dhumanaynin, iska baashaalaya, uu dhibaato u geystay wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya, welina wax cadaalad ah aan loo helin. askariga waxaa la sheegay inuu kasoo jeedo Puntland deegaanadeeda, isla markaana awood aysan u lahayn saraakiish iyo madaxda in ay qabtaan oo xiraan cadaaladna la waafajiyo, halka wiilkaasi
sidaasi xaqiisii lagu dafiray. Dilka ayaa yimid kadib markii uu isku dayay askarigaasi in uu handado baad ka qaato timaha loo jaro ha yeeshee uu ka biyo diiday. wiilka dilka geystay oo kasoo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa kamid ahaa canshuur bixiyaasha deegaanada Puntland, wuxuuna bixinayay qayb kamid ah lacagaha mushaar ahaan u qaadanayay ninkan askariga ah ee dilka geystay ee weli iska dhexmaraya gudaha magaalada, isaga oo aan cabsi qabin, aaminsanna in uu joogo deegaan uu kasoo jeedo askari uu ka ahaa haddana uu dilka geystay. waa muhiim ay dadka leeyihiin in cadaaladda loo raadiyo wiilkan dhalinyarada ah iyo qoyskiisa, maadaama dhowaan wiil aad u yar lagu qaraacay gudaha magaaladaasi lana soo qabtay ninka falkaasi geystay, laga xalmariyay eheladiisa, halka wiilkan kale ee Soomaaliga ahna xaqiisii hoos loo dhigay. intaas ayaa ugu waaweyn qodobadeena iyo wararka aan idin la wadaagayay. waxaan mar kale idinka codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe inoo saarto barteena YouTube si aan u gaarno yoolka iyo hadafka aan hiifsanayno. mahadsanid.